macbuudku waa ilaahay weeyaan ka cibaadada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka baryada mutaystay waa ilaahay weeyaan ka rajaha mutaystay waa ilaahay weeyaan ka cabsida mutaystay waa ilaahay weeyaan keligii rajee keligii ka cabso keligii baryo baahidaada keligii u sheego rabbigay waa allah diintayduna alislaam dhaqankaygu waa islaam wax kale anu kuma dhaqmo wax kale ma aaminsani diin baan u noolahay diin baan baranayaa diin baan ka shaqaynayaa qofka diin baan ku jeclaanayaa diin la'aanna waa ku nacayaa man axabba lillaah wa abghada lillaah wa acطaa lillaah wa manaca lillaah faqad istakmala aliimaan buu rasuulku yidhi ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan hadduu cid nici ilaahay dartii u nici kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad noqotaa qof lillaahi u noolow taariikhu saxaabay ku taalla siiratu caliy ibnu abi taalib nin baa yidhi hal min mubaarisin waa xilli macrakadii muslimiintuna xaggaa ay joogaan gaaladuna xaggaa ay joogaan ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhacoo yidhi hal min mubaarisin ayaa macrakadda iigu soo dhacaya cali baa u dhacay radia allaahu canhu caliy ibnu abi taalib ninkii intuu qabtay buu legday markuu seeftay qaatuu yidhi geli markuu isidhina caliy ibnu abi taalib oo ninka kor fadhiyey buu qandhuuf wejiga lagaga tufay markaasuu cali qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya uu ka kacay cali saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi gaalnimana ninkan diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufa kugu tufee waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayey hadda cadhaa i soo gashay buu yidhi naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yidhi lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraatoo tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nebigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii muxamed calayhi salaatu wassalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqi oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ha ka daawadee baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay maydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fawqa 7 samaawaat halkaasaa qofka mu'minku jannadiisay ka daawanaya sida innakuba aaladdan yare iminka aan haysanee moobeelka ijaabadda aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda amriika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisi iyo naciimtiisi iyo xurulcayntiisi markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha mu'minku ku seexda weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhulmawt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahluljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamassuhum fiihaa nasab wamaa hum minhaa bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal oo soo gaadhayaa ma jirto jannadaa ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya
ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba markaa meesha mu'minku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون واك إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه قل شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا لأن نلقى كالصبح دونا لأن حق إلهي بالله سؤرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولا يحي وما حيب لا يا هرددي نقصو كعيه وان جيفني وان وردني هرددا maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arka khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rasuushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yoom alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduunyadu وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بإلهي آية الليل آية النهار noloshan adduunyada aan ku noolahay waa maalin iyo habeen maalintiina waad foofaysaa habeenkiina waad nasanaysaa waad seexanaysaa qabriga haddii la galana waa hal habeen weeyaan sabixatuhaa yowma almaxshar waa berigeeguna waa maalinka qiyaamaha weeyaan يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله حيري نعم الدنيا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدي لكو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشي يري قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمنكينا beerbeeraha jannada kamida looga dhigaya gaalkiina waxa looga dhigaya godgododka naarta kamida looga dhigaya nina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halkaa ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ilaa joogadeena wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysaa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo bay qabriga ka soo bixi doonaan laysa ala ahli la ilaha illa allah wahshatun fi quburihim wala hasratun fi nushurihim وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها dadka adduunka dusheeda laa ilaaha illa allah ehelkayga noqda allah inaga dhigo qabriga markay galaan ku kaliyoobi maayaan maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug geliya arki maayaan waxaad moodaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintii murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sara jooga waa yoom qur-aanka yoom buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma yanduru almar'u maa qaddamat yadaah يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة هبين من مغليسد هبين كدودون واكاسي قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم قاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنوا صندون ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يلي أفرتم كنوا صنوا على الجوغي توبان كنوا صنوا حسابتا كل ماني دون تبو يلي أفرتم كنوا صنوا يا سيد الله تاقنان دونا
toban kun oo sanana xisaabta ku dhamaan doonta nin Carabi oo reer baadiya ayaa saraka cuud yaa rasuulallah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu ilaahay baa xisaabi doona rabbiga xisaabi doona markaa ninkii Carabiga intuu sii jeestay buu yiri najawna wa rabbil ka'ba ka'bada rabbigeega ayaa ku dhaartay waan badbaadnay buu waan nabad galnay markaa buu nabigu soo noqo si aad ugu nabad gashay buu ka yiri bal ii sheeg wuxuu waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu macid baa isaga qabsanaysa buu yiri waa kariim كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي إنك ماذا مجرو حتى جرى نبو رسول كل يحي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي مالنت عيد وكل أفعالين ليس مجرد لغة عربية لغة هذا الله يا حاجة ميدك تو أجي عمل جيسيبو أركي حاجة بدح تو أجي عمل جيسيبو أركي هرتي سو أجي نار تيبو أركي فاتقوا النار ولو بشق التمر أبو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نار تاقاشان كسما يستبو نبي يقول قاشان كي يشا تمر جيحيد والصدقات عضو بحسان كولين نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أبو نبي يقول تمر جيح تمر إني كان هلين أبو نبي يقول ياي هذا الكون أكسن أكو هذا كلمة ونكسن كو هذا سبحان الله وكلمة ونكسن الحمد لله وكلمة ونكسن أمر بالمعروف وكلمة ونكسن ذكرك وكلمة ونكسن استغفرت وكلمة ونكسن لا إله إلا الله وكلمة ونكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك عضو الشيكتا وكلمة ونكسن منكر كوضو مدى كريبتانا وكلمة ونكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آيات لي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيتري يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفوا البباردي سيبا كتا الله دواسدي لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس ما ليستحسعون يا هوا ليستحسعون يا قفك كلمونا إيجي مركز أبو نبي يا عائشة قفك أكسعود مالنتاس من نمبا ما قبط با ما نقبا ما بإيجي يا أبو رسول قد هم بقى مجربوا هورتي سواحة على النار دي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نيكا الأورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنة بالي نيكا سدولك مويان عرك ما إيجين مركز اللقولين مروق تنبدن وما حيبا اللقولي ما دادكن وحي أوغان بعد أدوكو أوغاتي باللقولي دادك أنيقا وحبيقا مقاليني تيدا أنيقو أنكا هالليا وحاني نيشيقا الموت في عنقي قيريدي با قورتا إيسودا والقبر بيتي هلك اللي يديقا ينوى قبر قويان والقيامة موقفي ماشا اللي يجوجينينا وابنك قيامة ويان وعلى الصراط طريقي وضد اللي يمرين دوننا واجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي يوحي يقول سمعين دوننا كما ورقبي بول عنه انت سو مرحلة نيكا اي سوغا يسو اساقو هادو قصلي حق قصلي بولي انو تايدا كورما يا بولي انت نولا هاي اوهين با نولو شيدا كودا ميسن بولي maanta waa adduunyo baritoola waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta almu'miniin caaisha radiyallahu canha shiddada qiyaamada markuu nabigeennu ka warramay calayhi salaatu wassalaam ayay tidhi yaa rasuulallah maalinka sara joogga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi 50 kun oo sannadood markaa buu nebigu yidhi caaisha qofka muuminka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka inta tukataan in laag baabanka qiyaama looga dhigi buu yidhi inta tukanay salaada maqrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo
mu'minka iimaanka leh ee adduunyadan intuu joogo ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka mu'minka aakhiraduu eegaa dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiraduu eegaa meeshuu marayo aakhiraduu eegayaa meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxii taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradayda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya ha dhowtoole mise waa hadal aakhiradayda aan ku badbaadaayo dhaqaalahaan bixinaayo ma dhaqaalo aakhiradayda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay mu'minku wuu xisaabtamayaa mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecee ku soo caabuday salaaddaa yaree faradka inta uu tukanayey in la eg baa banka qiyaama looga dhigayaa dadkii ilaahay yaqaanay dharaar iyo habeen aakhirada hortaalla iyaga aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaannaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhanna kuu diraayo dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisuu ugu yeedhay aakhiradana xaggeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raalli noqonna waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix